السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأوحو كدو عيستي نبي يونس عليه السلام دعاء عجيب قوربو كدو عيستي وحو كدو عيستي مركي او كل حجري علوش النبيريكا أما علوش حوتك. horta nabi yunis calayhi salaam wuxuu ahaa nebi loo soo diray dad naga horeeyay annaga nebiyaashii nebi maxamed ka horeeyey ayuu ka mid ahaa calayhim assalaatu wassalaam sida qur'aankaba uu sheegay wa inna yuunusa la min almursaliin. marka nebi yunis wuxuu raacay doon buu raacay, doontii ayaa laga riday, waa laga tuuray, badda ayaa lagu riday. badda markii lagu riday kaaga sii daran waxaa sii qabsaday oo liqay bahal la yiraahdo xoot malaay aad u weyn baa liqay ama nibiri baa liqay, afkuu kala furtay, calooshuu ku hubsaday. subxaan allah, waa nebi waxaa liqay nibiri. nebi yuunus calayhi salaam qur'aanka markuu tilmaamay wuxuu yidhi fanaadaa fi dhulumaat, mugdiyayaal ayuu ku dhex dhawaaqay oo ka soo dhex hadlay. culimada aayaddan markay fasirayaan waxay leeyihiin mugdiyayaasha la sheegaayo, mugdiyada la sheegaayo, mugdigii waxaa laga wadaa bay yidhahdeen mugdigii caloosha malaayga iyo mugdigii badda. subxaan allah, baa u kulmay. nebigan muxuu sameeyey marka? miyuu iswaalay? miyuu qayliyey? miyuu calacalay? maya, wuxuu ku dhawaaqay kelmad gaaban oo qaali ah ayuu ku dhawaaqay oo ilaahay uu ku baryay. ilaahayna baryadiisii wuu ka aqbalay, wuuna ka soo saaray calooshii, wuuna soo badbaadiyey. kelmaddu waa maxay? wuxuu yidhi an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. fanaadaa fi dhulumaat, qur'aanka ilaahay wuxuu ku yidhi wadannuuni id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi dhulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. kelimadaas ayuu ku dhawaaqay. ilaahay isla qur'aankiisa wuxuu ku yidhi fastajabnaa lahu, isla markiiba waan ajiibnay oo waan aqbalnay ducadiisa. wanajaynaahu, waanu ka badbaadinay min alghammi, murugtii, walwalkii, walbahaarkii, mugdigii calooshii uu ku dhex jiray waan ka badbaadinay oo waan ka saarnay buu yidhi ilaah. wakadaalika sida aan u soo badbaadinay, aan uga soo saarnay caloosha nibiriga oo aan bannaanka u keennay nebi yuunus calayhi salaam, ayaanu u badbaadinaynaa buu yidhi allah. wakadaalika nunji lmu'miniin, mu'miniintan sidaas ayaan u badbaadinaynaa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala. marka ducadan uu ku ducaystay baan rabaa micnaa inaan idiin sheego oo aan idin soo gudbiyo. ducadan horta waa ducada ah laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. waxaa laga yaabaa murug inay ku hayso, walwal iyo walbahaar inuu kugu furan yahay ayaa dhici karto. waxaa laga yaabaa inaad sijin ama aad xabsi ku jirtid. waxaa laga yaabaa inuu yani dhibaato inay ku haystaa iska dhici karto oo ilaahay keliya uu og yahay. maxaa samaynaysaa? dhibaato kastoo ku soo marto waxaad leedahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. soo weyse qaado, 2 ragcadood ilaahay dartiis u duko, ilaahay bari, waxaadna badisaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. dhibaato kasta oo aad adiga ku haysato ilaahay insha allah wuu kaa saari doonaa, insha allah wuu kaa saari doonaa. keliya qalbi saliim ah ha lagaa helo, waxaadna badisaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. ilaahay wax walba wuu awoodaa, ilbiriqsi ayuu muraadkaa uu kuugu fulin karaa. keliya adiga wixii lagu amray ha lagaa helo. ducada badi oo mar walba ducadan iyo wixii la mid ah ku celceli. ducadan waxay ka hadlaysaa tawxiidka, laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa anta buu yidhi nabi yuunus calayhi, oo aan adiga ahayn. yaa allah, ilaahay aan adiga ahayn ma jiro. subxaanaka, ilaahu adigaan ceeb lahayn buu yidhi, ceeb malihid, ceeb oo dhan buu ka hufay. qofka aan ceeb lahayn waa allah. subxaanak, ceeb malihid, ceeb la'aantaada ayaan kugu baryay buu leeyay. laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii anigana kuntu waxaan ahaa min aldaalimiina, mid gardaran ayaan ahaa buu yidhi, kuwa gardarsaday
oo dulmiga sameey ayaan ka mid ahaa dembigaygii ayaan ictiraafay bay la mid tahay waa duco qaali ah waa tawxiidkii ilaahayna wuu jecel yahay waa kelimad ka culus laa ilaaha ila allah ama laa ilaaha illaa anta waxay ka culus tahay adduunkan haddii miisaan la saaro oo laa ilaaha ila allah miisaan la saaro waxaa culays badan laa ilaaha ila allah duco ka qaalisanna ma garanayo anugu laa ilaaha ila allah nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu ku ducaysan jiray dadkuu bari jiray subxaana allah marka adiga kurbo kastoo ku haysata hami welwel walbahaar adduunkan hadduu kugu soo maro yacni hadday ku qabsato dhibaato kasta ilaahay u laabo oo dheh laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin haddii aad tahay qof xanuunsan oo jiran oo cudur hayo ilaahay bari oo ducadan ku celceli biidn illah ilaahay faraj ayuu kuu furayaa ducadan waa duco qaali ah mar walba dheh laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalaha kalena sii gaarsii khayrka ilaahay ha ku jeclaadee وبالله توفيق وفي أمان الله